aan ku bilaabay kulanka guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa lagu dhaariyay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasin Xaaji Samatar iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa shir gudoomiyay kulanka aan caadiga ahayn ee guddiga joogtada ah oo ka dhacay xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo kulanka furay ayaa xubnaha guddiga joogtada la wadaagay warbixin kooban oo ku saabsan howlaha baaxadda leh ee horyaala golaha shacabka iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in goluhu kalfadhiga toddobaad xooga saaro ka shaqeynta shuruucda golaha hortaala. ugu dambeyn habdhowraha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux ayaa dhaariyay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Professor Salim Cali Ibro. Gudoomiye Mugaab ayaa shir gudoomiyay kulanka amniga ee caasimadda Muqdisho. Wariyaheena Bashir Cabdi ayaa inoo faahfaahinaysa. Shirkaan oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Mudane Maxamed Axmed Diiri Yabo, taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Gaashaanle Sare Mahdi Cumar Muumin, taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Liibaan Aadan iyo taliyaasha guutooyinka militariga ee ka shaqeeya taageerada booliska ee loo yaqaan Booliisiya Militario ayaa lagu guud maray dardargelinta qorshayaasha lagu xaqiijinayo amniga caasimadda iyo degmooyinka gobolka, kordhinta wada shaqeynta iyo isku xirnaanta hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka, ka hortagga falalka amni darrada iyo abuuridda jawi nabadeed oo shacabka loogu adeegayo si hufan. Shirkaan ayaa adkeeyay in la xoojiyo joogteynta isdhexgalka iyo xog wadaagga hay'adaha amniga, in la dardargeliyo howlaha ka hortagga falalka nabadgelyo darrada iyadoo xooga la saarayo degmooyinka istiraatiijiga ah ee caasimadda, gaar ahaan xakameynta kooxaha dambiyada abaabulan geysta. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mugaab ayaa ku nuuxnuuxsaday in nabadgelyada iyo xasiloonida caasimadda ay saldhig u tahay horumarka guud ee dalka, isla markaana maamulka gobolka ay ka go'an tahay inuu la shaqeeyo dhammaan hay'adaha amniga. Shirkaan ayaa ku soo dhamaaday in la sii wado talaabooyinka lagu xaqiijinayo nabadgelyada iyo difaaca shacabka ku nool caasimadda iyo nawaaxigeeda. Bashir Cabdi, wararka Muqdisho. Ciyaartoyda degmada Holwadaag ayaa loo sameeyay dhiirigelin kadib markii ay u soo gudbeen finalka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. Kala soo hadlaya xarunta degmada Holwadaag oo caawa si degdeg ah uu ku yimid wasiirka wasaaradda cadaaladda Xasan Macalin si uu u dhiirigeliyo ciyaartoyda degmada Holwadaag oo u gudbay final. waxaana Holwadaag ay gaartay guul taariikhi ah iyadoo 24 sano kadib gaartay kama dambaysta tartanka degmooyinka gobolka Banaadir. waxaana wasiirku uu halkaan u yimid inuu dhiirigeliyo ciyaartoyda isagoo ku maamusay caasho sharaf isla markaana u sameeyay ballanqaadyo kala duwan oo markaasi ku dhiirigelinayo ciyaartoyda. waxa uu kula dardaarmay in ay markaasi ka guul gaaraan guusha ay rabaan iyo halka ay rabaan in ay gaaraan isla markaana ay keenaan koobka degmada Holwadaag. ugu horeyntii waxa dhiirigelinta caawa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Holwadaag Cadnaan, gudoomiyaha degmada Holwadaag Bashir iyo sidoo kale macalinka xulka kubadda cagta degmada Holwadaag. waxaan leenahay gudoomiyow la'aanta meeshan Soomaaliya gaarnayn aada u mahadsan tahay maadaama sanadkan ay ka go'anta in reer Holwadaag koob loo keen. waxaan u maleynayaa gudoomiyihii koowaad oo waxaa noqon doontaa doorasho qof iyo cod aan ugu soo fool leh. gudoomiyihii koowaad oo ku hardami doono inuu bulsho weynta reer Holwadaag koob u keenay. marka labaad waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo wasiirkeena sharafta badan bulsho weynta dhammaantood markay maqleen wasiirka imaha wasiirka iyo degmada Holwadaag xiriirka ka dhaxeeyo waxay ka arki karaan degmada sababtoo ah
degmada dhankan waxaa uga buufsan wasaaradda cadaaladda dhankanna waxaa uga buufsan wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladda mar walba gaashaan iyo garab waxay u tahay degmada Howlwadaag wasiir waa kaaga mahad celinaynaa ahmiyadda goonida ah ee aad siido degmada Howlwadaag warka inaan dheereeyo ma rabo khudbooyinka inaan soo koobaan rabaa anigoo hadalka dheereenayn sanadkan haddii aan nahay maamulka degmada Howlwadaag waxaa naga go'an inaan koobka keenno degmada Howlwadaag koobkiina waxaa nooga dhiman 90 daqiiqo dhalinyarada macallin xamaam oo hogaaminayna waxaa ka go'an mar walbana ballan ay iga qaadaan in sanadkan koobku uu yaalo bakaaro koobkaanu koobab kale waa ka nasiib badan yahay degmooyinka qaar haddii ay qaadaan bulsho yaraa u farxee laakiinse koobkan haddii reer Howlwadaag ay qaadaan suuqa ugu weyn Afrika ee suuqa bakaaraha qof kastoo ku ganacsado qof kastoo Howlwadaag degan ah u farxi doono waana malaayiin sababtoo ah waxaa ogtihiin diiwaangelintii la sameeyey in degmada Howlwadaag oo kaligeed ah in ay kaalinta afraad ka gashay dad weyn qulubtooda isku qoreen dhalinyaradan waxaana rajaynaynaa boorka meeshan ku qoran oo ku yaalo waa group stage-kii wixii aad soo dhigteen waxaan rajaynaynaa inaa koobkaas keentaan degmada Howlwadaag boorkan boorka weynna aan keenno qulubta reer Howlwadaagna aad isku qortaan intaas khudbadda ma sii dhaafinayo waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo salaantoodana aan ka tagay tiimka caanka ah ee nala joogo aaday u mahadsan yihiin waxaan kaloo u mahad celin rabaa isbitaal Muqdisho oo mar walba laf dhabar u ah tiimka reer Howlwadaag aniga soo dhaweyn bisa Allah idin sharafo dhalinyaro waxaa iga fadhinaa sanadkan in qulubta iyo aad isku qortaan qaamuuska yaala degmada Howlwadaag sanadkanna koobka aad keentaan Howlwadaag aada u mahadsantiin guuleysta baahda bulshada reer Howlwadaag iyo marti sharafka dhammaan iyo baahda saxaafadda dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay koow marka labaad waxaan u malaynaa war waxaan bar reebinba ninka la yiraahdo Cadnaan gudoomiye xigeenka siyaasadda aniga waxaan rabaa keli ah oo soo istaagay inaan u mahad celiyo wasiirkeena qaaliga ah runtii wasiir Xasan Macallin oo runtii aan aaminsanahay gudoomiyaha siyaasadda meesha uu ka yiri juhdi ayuu geliyay waxaan aaminsanahay aniga nafaanteedan hadda leeyahay runtii mudnaanta koowaad waxaa iskala wasiirka sababtoo wax walba waxay runtii ka hirgalaan niyadda oo dhiirigelinta uu sameeyey oo la garab taagnaay ciyaartooyda degmada reer Howlwadaag waxaan leeyahay wasiir haddii koobka la keeno insha Allah tacaala labada dhagood oo koobaad aad ka qaban doona insha Allah tacaala haddii Ilaahay idmo waxaan rabaa marka kale u mahad celinaa runtii maamulka degmada Howlwadaag oo si isku duubni ah u wada taagnay arrintan laakiin si khaas hadan waxaan ugu mahad celinaa gudoomiyaha siyaasadda Cadnaan iyo gudoomiyaha runtii sportiska iyo gudoomiyaha dhalinyarada oo runtii ayaguna si aad iyo aad isaga garabsada arrintaas iyo ragga cagta ka ciyaaray iyo macallimiintooda dhammaan waa u mahad celinaa iyo bulshada reer Howlwadaag oo garab taagneed waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena warkeena badina ma rabno maantana garabkayga aad ugu mahad celinaa markii labaad inaan wada kulanno wasiirka team Howlwadaag waxaan leeyahay taageerayaasha reer Howlwadaag guusha maanta gaarna qeyb ay ka tihiin sida garabkeenu taageentihiin game walba ciyaareen waa idinku mahad celinaa qof kasta oo guushan qayb ka ahna ugu mahad celinaa dhammaan gabdhaha social media isticmaalay iyagana waa ugu mahad celinaa waxa xafladeen qurux badan noogu soo qayb galay macallin xamaan hadda koor balan ayaa qaaday markii habeenkii liigu soo oo xafladda inta liigu qabanayo oo degmada liigu soo bandhigayay balantaas oo ahayd oo afkeyga aan ka dhahay in sanadkan hadduu Ilaahay gaarsiiyo koobka degmada Howlwadaag la keeni doono hadalkeyga wuxuu ahaa inaan dhahay sanad cusub degmo cusub jaagad cusub koob cusub wax walba waa aragteen jaagadda waa aragteen sanadka waa sanadkii 2025
koobkiina keliya waxaa ka harsan waa 90 daqiiqo iyo caafimaad inuu Ilaahay nagu gaarsiiyo marka hadduu Ilaahay ka noqdo keliya jamcaha ama habeenka sabtida soo galayso koobka halkan inuu soo hooday rajinina insha Allah farxad way dambaysaa yaa lis dhiginin shaqa hadday bilaab tahay marka reer Howlwadaag aad iyo aad u maasantiin waxaa rajinaa insha Allah si sharaf leh oo muqaam leh inaad macnaha aad noo sharaftaan si sanado badan aan wada shaqeyno insha Allah hadduu Ilaahay ka noqdo waxaan halkan ugu mahadcelinaa wiilashayda garabkayga ah jaceelka aniga wiilashayga naga dhaxeeyo degmo ka dhaxeyso ma jirto waxaa guul aan la gaarayna waxay tahay waxaa heystaa dhalinyaro aniga jecel guusheeda jecel sharaftooda sharafteeda ka horumarinaya aniga dad badan ay ugu dhagan laakiin waxaa rajeynaa dadka inay iga foqeen markay Howlwadaag aan final keenay 4 sano xiriir ayaa tartanka degmooyinka matalayay 2 guul darbisa ay ugu dhacday 4 sano dhan taas Ilaaha ugu mahadcelinaa marka taas waxay ku cadeynayaan marka inta badan dadku waxay dhahan jaagada waa guusha jaagada guusha maana maskaxda waa guusha markasta waxaa mahadcelin iska leh Alle subhanahu wa ta'ala mahadcelinta Ilaahay ma laga tago qof kasta oo wax rajeynayna waxa la rabaa inuu dhaho insha Allah berito waxaas baa rajeynaya insha Allah na muhiim waay Ilaahayna muhiim waay aniga waxaan leeyahay dhalinyarta reer Howlwadaag waligiina xamaan hadda haysataan cabsiya la qabin insha Allah damaan wasiirka cadaaladda wasiir aad iyo aad kaaga mahadcelinaa in reer Howlwadaag saana u wada farxaanne waa waxa Alle subhanahu wa ta'ala ugu mahadcelinayo iyo maamulkayga iyo wasiirkayga iyo dadkayga iniga wax idinku ahay inigina anaa wax igu tiin marka waxaan diyaar u ahay inaan degmada u dagaalamo degmadeena u dhinto wax ii haray ma lahan inta uu dagaalamo waa u dagaalamay 90 daqiiqo ii haray garoonkaas anaa iska leh filinka anoo igu socdaa cid kala jirta ma lahan wax walba anaa insha Allah wasiirka wasaaradda cadaaladda Xasan Macalin ayaa halkaani kula hadlay ciyaartooyda iyo sidoo kale taageerayaasha kala duwan ee ciyaartooyda degmada Howlwadaag waxaana uu markaasi ku dhiirigeliyay sida ciyaartooyda ay mar walba ugu taagan yihiin in ay ka gulgaaraan yoolkooda ugu dambeeya waxaana uu wasiirku kula ballamay in ay koobka keenaan degmada Howlwadaag degmada Howlwadaag ay soo hoysay oo finaalka ay gaarsiisay guushaas runtii sida la sheegayba waxa ka ka maamulka ayaa ka ah oo gudoomiye Bashiir uu hogaaminayo dhammaan qaybaha kala duwan ee maamulka gudoomiye ku-xigeenada sportiska ayaa number 1 ka ah haddii aysan jirin hoggaan ka maamulka hadduusan jirin uusan hogaaminaynin ciyaartooydu guul ma keeni karaan number 2 waxa ah oo runtii ayaguna aan arkayaa u jeedaa raba inaan u mahadceliyo taageerayaasha saacadan banaanka jooga oo ka soo qayb galay oo saacad walba taagan oo degmada Howlwadaag ay leedahay oo garab istaag iyo dhiirigelin u muujiya anigu taageerayaashaasaan ka mid ahay marka saddexaad waxaa mahad iska leh macalinka xamaasadda macalin xamaam iyo macallimiinta kaleeto oo guushiisa inta badan xamaasadda uu gelinayo ku keena waxaa la yidhahdaa midda ugu dambaysa ma ahan waxaa iyaguna sidoo kaleeto ciyaartooyda runtii ciyaartooydan maalin dhaweydna waa sheegay waxay markii la iiga sheekeeyey oo laygu yidhi dhallinyaradan waxay ka kala yimaadeen Hargeysa iyo Jigjiga iyo Goday iyo Garowe iyo Gaalkacyo iyo meel walba ka yimaadeen waddanka iyo Guriceel runtii waxay ku tusinaysaa iyo Guriceel runtii iyo degmooyin ka gobolka haddii aan u nimaadno faahfaahinta dibadda iskaashi cusub oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Japan ayaa la soo bandhigay wariyaheena Maxamed Cabdi Qani Salaad ayaa guud ahaan wararka caalamka inoo dulmaraya
saddex qof ayaa waxa ay ku dhinteen Jamaica kadib markii ay ku dhufatay duufaanta Melissa taasi oo ah duufaantii ugu xooga badnayd ee caalamka laga diiwaan geliyay sanadkan. Dabaylaha ayaa saacadiiba 282 kilomitir jaraya waxaana ay ku dhufteen jasiiradda taasi oo khubaradu ay sheegeen in ay noqon karto duufaantii ugu xooga badnayd ee abid ku dhacda dalkaasi. Melissa oo haatan gaartay heerka ugu sarreeya ee duufaanada qaybta shanaad ayaa si tartiib ah ugu socota jasiiradaha kale ee ku yaala Caribbean-ka. Khubarada saadaasha hawada ee Mareykanka waxa ay ka digeen in dadka deegaanka ay wajahayaan musiibo weyn iyo xaalado khatar ah oo nololeed maadaama ay suuragal tahay in duufaantu ay sii xoogeysato saacadaha soo socda. Wararka waxay intaasi ku darayaan in 4 qof oo kale ay ku dhinteen Haiti iyo waliba sidoo kale Dominican Republic taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 7 qof. Waxaa kaloo la sheegay in burbur hantiyadeed oo baaxad leh iyo go'doon uu ka dhashay daadad iyo roobab mihigaan ah oo duufaantu ay keentay. Khubarada ayaa waxa ay ka digayaan in gaabiska ay Melissa ku socoto uu sababi karo roobab waqti dheer socda iyo fatahaado halis ah. Dowladda Jamaica iyo dalalka dariska ah ayaa waxa ay ku baaqayaan in dadka ku nool xeebaha iyo meelaha khatarta ah ay u baxaan goobaha amniga leh oo ay ku yara badbaadi karaan sida ay sheegeen mas'uuliyiin u hadlay Jamaica. guud ahaan daawadayaal warkii Soomaaliga intaan oo Nimco Cardoofa ah ayaa idin waramayay ee nabadgelyo.